بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ما هذه اسكله وجمعيه اللبادي بشهر بركيسان رمضان وحين فرصتي كان السهل لي شيخيني وإله إلهي باوين مفتقي وطنك شيخ محمد شيخ عمر درر ورنتي سووا آذو مشغولة حدنا مساجد كينا سيجارة حقيقة ما كان نوبها إنه شيخ نقا أقبله صلاة عصر كدي بلفتر كذا مساجد بكل محاضرة هذا لو نقا أقبلي سؤال فربضن بي جمع مساجد كونو ديبين كنت ميوي قاريين لبعتن سؤالات بنو كقاضني سانو وقتنا ويلالينه شيخنا وحوي المحاضرة يسوى عن ببحه إنه إن شاء الله تعالى وحي كذا بيان القرآن كين يد عبادة إني كفاية سنه شيخ محمد سؤالين أنتوا سوق للدونا تدخل مقاعد ذي شيئين يين سلامان أنت سوق هبي سؤال شوقه الرئيسة qofku inuu dhiig laga shubo ama uu dhiig ku tabarruco ama dhakhtarku uu uga baahdo caafimaad ahaan inuu dhiig waxa weeyaan laga qaado ama laga shubo isagoo sooman arintaasi soonkiisa maxay yeelaysaa dawooyinkan indhaha loo isticmaalo ee waxa weeyaan daroobooyinka ah ee la isku shubo indhaha la iskaga shubo dawadaasina soonka may jabinaysaa waxba yeelaysaa su'aasha labaad waan xanuunsanayaa kaliyaha la imeeraa وانا اسكو دايا inaan soomo kaliyaha la iimayrayo oo maadooyina lagu shubayo maadooyina la iga shubayo soonkayga kaliyaha la iimayraya wax ma yeelaysa su'aasha saddexaad baadiyahan u safray salaadii maghrib ila 20 daqiiqo ka harsan tahay ka hor ayaanu moodnay in eedaankii maghribka yeedaamay masaajidna nooma dhawa annagu baa ijtihaadnay markaanu afurnay muddo kadib waxaan ogaanay inaanu ka hor dhacnay salaadii maghrib iyo eedaankeedii marka maalintaas soonkeeda ka waran su'aasha afraad xaaskaygii ayaan u galmooday ama aan u tagay anigoo sooman 2 sanadood ka hor wax kafaarada aan maan gudin sanad 2 sano ka hor bay arintaasi dhacday sanad ka horna xaaskaygii waan furay kafaara hadba baan furay kafaara miyaa leeyahay leeyahay waxaan cadeynayaa in iyadu iga dalbatay hawsha inaan galo su'aasha shanaad xaas baan guursaday meherkeeduna wuxuu ahaa inaan xajka geeyo way igu adkaatay inaan wada safarnaan xajka geeyo meherkeedii xajka ahaa ma u kaash garayn karaa su'aasha lixaad anigoo suxuurtaydii cunaya cuntadii qaybna gacanta ku haya qaybna afka ay igu jirto ayuu fajirka eedaamay maxaa markaa arinta xalkeedu yahay su'aasha toddobaad dilaal baan ahay dhulalkan iibiyaa haday midna badhulku la siinayo 70000 20 baan ku daraa oo ninkan ka iibinay waxaan ku yiraahdaa waa 90000 70 kana ninkii dhulka iska lahaay inta uu doonayay baan siiyaa 20 kunna jeebadayda aan ku shubtaa lacagta 20 xalaal ma ii tahay mise imaaha su'aasha sideedaad hooyaan ahay laba yaryaro aytaama oo agooma baan haystaa lacagtaan u hayo ee waxa weeyaan cuntadoodii cabitaankoodii iyo dharkooda ah wixii dhaafsiisan inta xoolahooda iyagu leeyihiin sadaqo bisha barakaysan ee ramadaan fadligeeda lacagta qayb sadaqa ma u bixin karaa su'aasha sagaalaad waan zinaysan jiray buu habeenada ramadaanta maalintii waan soomanahay habeenkiina dambiga zinada ayaan galaa waan toobad keenay imika mar baadaan toobad keenay maxaa leeyahay leeyahay su'aasha tobnaad zawjku ama odayga reerku xaaskiisa miyuu ka mamnuuci karayaa miyuu u diidi karayaa inay salaada taraawiixda masaajidka ku tukato الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ما يسترددك wax su'aal la yiraahdo baa laga soo daayay kala nooc qaarkoodna yaraka kan yihiinba su'aalaha waxa yareeyo cilmiga la barto marka cilmiga aan barano insha Allah kulli su'aal la waayma laakiin haddana marka aqoonta diinta iyo shariicadu ay korodhaba su'aalu way si yaraada marka jahligu si batana su'aalaha la isweydiinayaa batawliba kuwa basiidka ah tan soo koobo qofku marka uu soomaya inuu dhiig iska shubo ama istoobo ama dhiigii shaybaarka iska qaado way u banaantahay culimadu saasay u badan
waxay daliishanayaan xadiidka ibnu cabbaas saxiixa ah ixtajama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa saa'im nebigu wuu istoobay isagoo sooman marka dhiiggii la shubaya toobinkiina waa isku mid hadduu laakiin qofku daciifayo oo soomkiisu khatar gelayo inuu iska daayaa wanaagsanoo habeenkii shubo haddaanu qofkani nafbaxaynin loo shubayaa oo markaa dee naf buu badbaadinaya indhaha dawooyinkan dhibiqdhibida ah ee lagu shubayo wax dhiba ma laha waayo alcaynu laysat manfadan maftuuxan ila aljawf ishu uma furnaa caloosha su-aasha labaadee keliyaha in la maydho iyo soomkii marka uu qofkii gaadho in keliyihii loo maydho inuu iska afuraa fiican laakiin hadduu soomi karayo keliyaha la maydhayo culimadu waxay leeyihiin iyadoo dee kollay daraasadda dhakhaatiirtana loo fiirsanayo qofka marka keliyaha loo maydhaya waxaa loogu daraa maadooyin muqadiya iyo muqawiya waxyaabo sida guluukoostoo kale xoojinaya ama halkii raashinkaoo kale u galayaa dhiigga loo raaciyaa sidaa daraaddeed maydhistaasi way jebinaysaa soomkii maadaama maadooyinkaasi la socdaan la soo qalleeyo qofkii haddii uu afuro intii aan qoraxdu dhicin oo ay u caddaato inuu afuray iyadoon qoraxdii dhicin maalinkaa inuu soo qalleeyaa waa waajib wuxuu khilaafay qowl allahi tacaala uma atimu siyaama ila alleyl habeenkii iska cuna oo iska cabba marka waagu bariyo cunitaanka joojiya ilaa qoraxdu intay dhacayso aayaddaa kumuu camal falin laakiin hadduu gafahaan ay uga dhacday oo uu ismoodsiiyey dembi kuma laha maalinkaasi qofkaasi wuu soo qallaynayaa kafaara gud baa la igu yeeshay galmo xaggeed ka yimi bisha ramadaan 2 sanana way ka soo wareegeen afadiina maba joogto ee waanu kala tagnay ma dhacayaa maya ma dhacayo soomaalidu waxay dhahan gashi ma duugoobo haddii gashi lagugu leeyahay oo qofka muddo dheer ah kala maqnaydeen ii dhiibunbaa ka taala gashiga ilaahayna ka aadamuhu la midii ilaa nabigu waxa uu fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo ta bani aadamkaba ka habboon xataa hadduu qofku dhinto waa laga bixinayaa xajka iyo meherka in meherkii xaj laga dhigaa way iska bannaan tahay labada qofna waxa u bannaan oo kale haddii ay suuroobi weyday inuu xajisiiyo inay bedelato way ka heshiin doonaan xajku intuu marayaa intaasuu marayaa dee intii oo kaasha ii dhib sidiisaba qofku hadduu xaq leeyahay oo manfaco qofkan iyo dheef uu ku leeyahay dheeftii wuu sarrifan karaa kaash buu ka dhigan karaa marka tan oo kale qadarkii lagu xajayay xoolo ahaan bay ku qaadan kartaa aniga oo suxuuranayo afka ku hayaa la aadaamay miyaan si liqliqayaa mise waan joojinayaa mee waad joojinaysa waa kaa ilaahay waa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajri cuna oo cabba habeenkii jeeroo waagu caddaado markuu caddaado joojiya wey xadiidkii saxiixaana nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka bilaal la yidhaahdaa habeenkood dadan buu adaamaaya iska cuna cabdullaahi ibnu ummi maktuum asxaabigaa indhahale markuu adaamo joojiya markaa waxaa lagu joojinayaa waa waagoo caddaaday taana waxaa daliil ah adaanka labaad kol hadduu mu'adinku adaamo iska tufo halkaa ku joojiya oo ka cadayo su-aasha kale odhanaysa dilaal baan ahay dadkana wixii aan u iibiyey qayb baan ka qariyaa ma qaadan karaa maya waa xaraam waa dulmi qofka badeecadiisa aad u iibinayso lacagtaad siisa isagaa leh adiguna waxaad xaq u leedahay mushqaayad iyo ujra iyo dilaala ka heshiisaan waxaagii 90,000 baan kuu soo siiyey aniguna 100kiiba hal baan leeyahay ama labaan leeyahay wayna ka heshiisaan marka horeba hawl baad qabanaysa dilaalintu mararka qaarkood dilaal oo dhan ma wada ahay qaarkood dadkan xalaal miiranayn marna waxay qariyaan marna qofka dilaalkay ku qabsadaan ku qadiimayside marka inuu wax qariyo waa dulmi iyo xaraan oo xoolihii qofku badbar goosato 90 kan alaabtiisa lagu iibiyay isaga iskale aduguna ama bilaash ugu iibi ama mushqaayadaada ka heshiiya nabiga calayhi salaatu wasalaam nin curwo la yidhaahdaa u soo iibiyey neef uu ku odxiyeysanayay markaasuu dhexda la baayacay markaasuu sii iibiyey neefkii haddana mar labaad buu neef kale u soo iibiyey lacagtii uu nebigu u dhiibay
iyo neefkii uu ka doonayba uu keenay oo faa'iido soo sameeyay faa'iidadii iyo neefkiiba nabigu uu ka gudoontay waana u duceeyay dee wuxuu odhan lahaa intan adaa iska leh wixii kordhay adaa iska leh iyo waxaan waxaygii ka soo baxay markaa qofka wixii lagu iibiyay isagaa iska leh haddaad wax qarisana waa xaraam iyo dulmi sida saxdii waxa weeye labada qofeed wax ku kala iibinayso xataa inaad u sheegto waxaagu wuxuu yahay oo tiraahdo anigu dilaalkaygu waa intaa waan idiin qaybiyey ama hebel baan la socdaa waxaa la qarinayaa la iska daayo si aanay dadka maalkooda uga wasakhaynin xoolaha agoonta ma laga sadaqayn karaa maya xoolaha agoonta waxaa laga bixin karaa un wixii iyaga ku waajiba ayaa laga bixin karaa sida kafaara gudkii iyo sakaad fidrigii iyo sakadii xoolaha iyo laakiin sadaqa male sadaqana lagama qaado xoolaha agoonta siyaarana lagama qaado wixii walaa taqrabu maal alyatiimi ilaa billatii hiya axsan xoolaha agoonta ha u dhowaanina buu lahay ilaa wixii axsana mooyaan wixii iyaga u danahu wixii aan iyaga u danahayn waa laga daynayaa markaa wixii aad adigu leedahay ka sadaqaysa haddaad tii carruurta hooyadood laakiin xoolaha agoonta u daa intood jibootood marqaanto dembi ha ku dhicin haddaad bixisana adaa lagugu leeyahy inaad u soo celiso oo aad u magdhowdo xoolihii agoonta marka axankii iyo fidihii iyo cuncunkii kala duwanaa magihii iyo siyaaradii wadaadku ka qaadaya iyo waxaasoo dhan qofka qaatay waa gashimadu waaba iska soo celi weeye waa la xisaabinaya iminka hadday marka waalidku dhinto dadka qaraabadii intay yimaadaan xoola ka qalqalaan maalkii agoonta intii qalqashay unbaa la leeyahay kaana xisaabi xil ma leh xoolaha waxba agoonta kama go-aane dadkiina yidhi fideeya axan baanu samaynaynaa soo celiya markaa dadku way iska dayn lahaayeen baan u malay haddii la xisaabtamo qaarkood tobannaan adhiya laga magdhabo mushkiladda kale iyaduna halkan lagu sheegay waxa weeye sina dhacday ramadaan habeenkeedii waa laba jariimadood oo isa saaran ama laba dembi oo isa saaran dembigii sinadoo aada u weynaa kabaa'irta ka mid ahaa iyo xurmadii ramadaan oo qofkani uu meel kaga dhacay laakiin ilaahay towbadda waa aqbalaa qofkaasi hadduu towbad fiican toobad keenay ilaahay ha u soo noqdo ha toobad keeno towbadduna shuruuday lahayd waxaa ka mid ah inaanu dembigaa ku noqon gacanta ka qaado ka murugoodo wakhtigiisii toobadda uu taagan yahay markaa in laga aqbalaynu rajaynaynaa waxaasina waa wax aada u foolxun qofku inta uu iimaan leeyahay waxa sinada la yidhaahda iyo dilka iyo tuugada iyo kuma kacabuu nebigu yihi xadiidka saxiixa sida ku sugan intuu iimaan leeyahay laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min qof iimaan lihi ma sinaysto qof iimaan lihi qof ma dilo mu'mina qof iimaan lihi wax ma hado xadiidkaas saxiixa nebigu saasuu ku yidhi marka culimadu waxay yidhaahdeen haddaa siduu noqonaya dee iimaankii baa laga siibaya iimaanku uma qalmee kor baa looga qaadayaa sida dallaayadda intaa uu sillan yahay ee uu qurunkaa booshaaqayo marka xumaantay leedahay taasina muujinaysaa marka aada looga fogaado su-aashan kale waxay leedahay ninku xaaskiisa ma u diidi karaa taraawiixda hadduu dan u arka haa hadday jibbootay oo ciyaalkii oo qaarna aska jaqayaan qaarna dabka ku dhacayaan ay ka cararayso odaygiina halkan keligii wuxuu sheekeeyo maaweeliye uu leeyahay dee cibaadadeedu waxa weeye inay ammaanada halkan taalla ku cibaadaysato gurigana iskaga tukata intay karayso asalkeedaba oorida muslimadda ah shaqadeeda asalkeedu waa guriga waa ilaahay baa wuxuu uhi waqarna fii buyuutikun sheekh baa wuxuu qoray kitaab la yidhaha almufasal fii axkaami almar'a weynoo 12 mujalladahoo ruux dumara wixii ku soo arooray in nusuus buu ku soo jamcinayaa markaa wuxuu leeyahay culimada muslimiintu waxay isla waafaqeen asalka shaqada ruuxa dumarka inuu guriga yahay wixii ay uga baxdaaba waa duruuf sidaa daraaddeed hiblaayoy halkan ku cibaadaysa buuri iyaduna waxay tidhi me halkaasaan tegayaa culimmadu qur-aanka aadka u akhriyayaan baryuunbay ku leedahay laakiin qasabkuma leh macnaha inay dee isaga ka dhammaysatay ka heshiiyaan mooyaane amarkiisuna waa waajib taraawiixduna waa sunne waxaa la mid ah tii waalidka dhallinyaradii hablaha ahaa maala waalidkii cawradoodiiyabuu u baqay dee waa dhibka soo gaari kara habeenkii tahajudka hiblaaye ha tegi buu marka ayay tidhi hooyadeed baa tidhi ama aabbaheed baa yidhi marka ma tegi karo qofka amarka waajibka iyo amarka ninku iyo amarka madaxdu kolkaanay macsiyo ahayn waa waajib in la khilaafana maaha marka sunne loogama guuri karo sunne loogama tegi karo marka saasaynu baraarujin lahayn laakiin wax dhibi haddii aanu jirin oo baylahay aanay jirin
cawra iyo ceeb muuqanaysa akhlaaq xumo iyo adab darre iyo asturnaan la'aanna aanay jirin in dumarka loo fasaxo weeyaan inay ku cibaadaystaan masaajidada mar haddii shuruudaha laga helay hawsheedii way u habaysan tahay asturnaantii waa jirtaa iyo aadaabtii wax dhibihi ma imanayo markaa si aanay guriga ugu cibaadaysanayn bay ugu cibaadaysanayaan masjidka hadii dadka ha ku daydaan khayrka wada in la daayo weey waa nabigu wuxuu la tamna'u ila allah masajid allah masaajidada ilaahay adoomaha ilaahay ha u diidinay dumarka ah marka sida la isku waafajinaya xadiidkaasi waqtiga lagu fasiraya waa waqtigan dayacaadi aanu ka jirin haday dayacaadi ka jirtana daliilada kala lagu amal falaya oo sideedaba daliilada waa la isla akhriyay si loo jamciyo wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ محمد الله كبركه سؤال ku xigta waxay leedahay inaan walaasheeno qof dumar ah soo qortay ma banaan tahay inaan weysaysto anigoo timo qaawayin quraankana ma akhrisan kara timo qaawan guriga aan ku suganahay su'aasha labaad hooyana ismuujinaysanahay ramadaantii horena maalmaha la igaga lahaa qallayna maan qallayn manaan soomin maalmaha la igu lahaa ramadaantana waxay soo gashay anigoo naasnuujinaya maxaa xal iyo talaba su'aasha 13aad nin baan deyn ka qaatay sanado fara badan ka hor ninka aad baan u baaray aad baan u deedeeyay waan waayay xoolihii deynka ahaa waxa weeyaan ma waxba liiga leeyahay hadii liiga leeyahayna maxaan sameeyaa su'aasha ku xigta waxay leedahay dadkan guryaha wastaatiin baan nahay injineeriya wastaatiin guryaha dhisa cadceeduna aad bay u kulushahay sanadkan ma noo bannaan tahay inaanu afurno qaboobuhu markuu yimaadana inaan bisha soonna hadii la yiraahdo su'aasha 15aad walaalkay ayaa isagoo sooman uu ilaabay cunto meesha taalay cabitaan buu ka dhargay markaan xasuusiyay aan ku yiri war Ramadaan baynu ku jirnaayay joogso gawdaas iga saaro uu dilay sharci ahaan ma isaga iga saxsano waayo isagu wuxuu leeyahay nabigu wuxuu ilaahay baa qofka qoodiyay marka ma isaga iga saxsano inaan u sheego maaha mise qofka hadduu qofku iloobo isagoo sooman in la xasuusiyo dadka ag jooga inay xasuusiyaan baa waajiba su'aasha 16aad ee ku xigta inaan walaasheena soo weydiisay waxay tiri ma cuni karaa kiniinka dubiga dhigaya caadada si aan bisha Ramadaan u wada soomo oo qalal igu yeelan su'aasha ku xigta wuxuu yiri xaaskaygii baan la faraka ciyaaray anigoo sooman shahwadii ama manidiina way iga timid soonkayga maalinta ka waran su'aasha 18aad waxay leedahay 25 sanadood ayaa soon leeyahay leeyahay oo aan soomi jirin imika waan toobad keenay oo sanadkanba waan soomanahay 25kii sanadood ee aanan maalin kaliya soomin maxaa la iga leeyahay su'aasha 19aad ramadaantii hore anigoo i'tikaaf baan ku jiray 10kii ugu dambeeyay habeenkii 23aad ee Ramadaan intaan gurigeygii tagay oon xaaskaygii jaamacay ama la kulmay aan isaragnay ayaan intaan soo maydhay masaajidkii ku soo noqday wax miyaa la igu leeyahay labada su'aalood ee ugu dambeeya mid waxay leedahay irbadan suuxdinta ilkaha anigoo sooman ma la igu dhufan karaa ma la igu mudi karaa iligna ma iska saari karaa anigoo sooman cilman bi annahu waxa weeyaan dhiig fara badan baa waxa weeyaan ka soo iliga la socda marka qofka laga saarayo soonkayga maalinta ka waran su'aasha ugu dambaysa waxay leedahay walaalkayo iga weyni isaga nabiiliya gurigana waan wada deganahay uu soomaa laakiin ma tukado soonkiisa shariicadu maxay ka su'aasha odhanaysa ruuxa dumar ee quraanka ma akhri kartaa ma weysiisan kartaa iyada oo madaxeedu bannaan yahay jawaabtu waxa weeye gurigeeda dhexdiisa haday fadhidaha waayo cidii cawrada laga asturaya ajaanibti ma joogaan shardina uma aha weysada iyo quraan akhriska inuu qofku madaxiisu asturan yahay warkuba intaas ku urursan yahay laakiin madaxa waxa laga asturayaa xijaabka laga qaadanaya dadka ajaanibta ah ee aan xalaasha ku ahayn ama mahramka ku ahayn su'aasha odhanaysa waxaan ahay ruux dumara oo shaqsiinaysa qallana waa la igu leeyahay maxaa yeelaya waa arrin runtii su'aalaha aad ugu badan
soomaalidana hawl weyna u taala ah la waliba reer magaalka reer miyiga iyo qurba joog malaa waa ka saalayeen magaalooyinkeena dadka jooga oo reer magaalkii ma kala dhamaanayo sanad walba way dhalayaan dabada isugu qabanayaan haddii islaantii la yidhaahdo heblaayo walaha in la yar kala fogeeyaa fiican oo farsamooyin dhakhtarku yaqaanaa jiree si aad aduguna u nasato ubadkuna u kala koraan diintaba waad ka baxday odhanaysa iyadaaba diidaysa waayo ubad ilaahay soo wadaabaad hor joogsatay waa mafhuum ku qalloocday oo qofku markaa aqoontu dee aanu garanayn wax ku qalloocdaan hawsheeda ay leedahay nin aanu saaxiib nahay baa xaaskiisii maalin dhaweed dhasho waxaan ku yidhi waa kii imisa tobnaad waxaan moodaya inuu igu yidhi kii 17aad ama 15aad welina way wadaayo wuxuu yidhi waxaan ku qancin kari lahaa iska naso laakiin waxaan u malaynayaa buuri daniba inay soo ridi haata sida u nafaqo beeshay marka la eego marka caafimaadkii cibaadadiiba halkaa way ku dhib qaabaan wax dhiba ma laha shareecada haddii tandiim la sameeyo shareecadu waxay diidaysaa tacqiimka in qofkii dhasha laga jaro oo laga baloogareeyo ayay diidaysaa laakiin in la nidaamiyo oo siyaabahan dee xalaasheen dhibka lahayna dhakhaatiirtu yaqaanaan lagu nidaamiyo waa sax weeye oo qofkii dhowrkii sanaba mar uu dhalo dee waalidkeenna carruurta waxa lagu kala korin jiray in naaska la jaqsiiyo taana waxaa duulaan ku soo qaaday mujruucan xun waa hal xunoo masaasada ay yidhaahdaan oo markiiba afka u gelinayaan taasaa naaskii kharibtay markaa naaska ha la jaqsiiyo ciddii aanu ka guraynin carruurta ha loo nidaamiyo hooyooyinku ha nastaan ha cibaadaystaan almuhim ruuxa dumara inta rajo laga qabo inay soo qallayso raashin ma bixinayso 8 bilood marka Ramadaan laga soo wareego dee way soomi kartaa ilmihii socdo wax cuno marka qallaha ha bartaan dumar dib baa jiro oo waxay xusuusanayaan Ramadaanta kale markay soo dhawaato ama la yiraahdo soomtii baa soo gashay ama imika la soomaya marka qallaha waxa qof kasta oo qallayn kara xataa ka bukanaha ka bukaa wuxuu raashin bixinaya markuu ka quusto qallaha iyaduna ka bugtuun bay la mid cibaadaduna waxa loogu talagalay in adoonka lagu tijaabiyo dee tijaabadiiba inay dadkii weydaartaan ay ka baxaan maaha marka dumarkaasi hay iska sugaan qallaha markay qallaha ka quustaan bay raashin bixin karaan su'aashan kale waxay leedahay deyn baa qofigu lahaa mana garanaya maxaan yeelaa waxa ka horeeya dadku hay iska bixiyaan deynta Soomaalidu waxay yiraahdaan amaana kugu raagtay yadaabaad moodaa qof baa deyn lagu leeyahay iskeera macaansanaya dadkiiba siin maayo xoolahoodii marka dambena kiilaha haduu weydiiyo waa la yaabaya هذا قانونات بدن إذا أقول أنا يدك كيف دين ما يسكون له وردين تبصيبوا إنك كمت بلايين كنا بيقول هاي كم مجن قلي أي دين تكمت قفك الشهيد كوح والبوا على قد عافية أبو دين تمويان دين تلا جمر عافية وانك إلى وإحنا بكم مجن قلي سر إلى هاي من المغرم والمعثم دم بيجي الدين لا بلا سوي هاي كم مجن قلي مركا كود دال واحد كل شقة سنة يسان ونقضى واحد لا هاي waxaad isticmaalaysaa waxaad leedahay xataa halkaad hagbad ka gali lahayd adigu bireeg yeelo akoonka iska dhigo oo dadka had iyo jeer hagbadaha waxa galiya oo ay isleeyihiin de naftaanad ka xijin karay nafta ka xijiyo akoonkaaga iska dhiga inta wax lagu yeelan lahaa almuhim deynta qofkii lahaa iyo dhaxlayaashiisiiba haddaad weyday sadaqa ugu bix taladaasaynu laakiin ka horraysiin shaqooyinka adag markay Ramadaan ku soo beegmaan ma la afuri karaa ma lama afurayo al-a'maal shaqa la takunu sababan li iftar as-saim qofka sooman inuu afuro shaqo culus oo hay'ad daraadeed uma banaynayso laba mid baa u banaan inuu habeenkii shaqada loo bedesho leeyrka loo siraato kadaniya badan ba habeenkii shaqeeya waa suuragal waxa kale oo suuragal shaqada in la soo koobo oo qaboonooyinka la shaqeeyo qaboonada hore iyo qaboonada dambe waxa saddexaad islaamku uu ogol yahay hadii de shaqadii galoo ku jiro markay naftu ku qabato gaajiya haraad waad iska cuni maalinta laakiin lagu ma oranayo soomi haday gaajo naftu ku qabato iyo haraad dhima lagu oran maayo waad iska cuni maalinta laakiin asal ahaan lagu ma oranayo soomi su'aashan kale oranaysa qofku hadii uu wax cunayo uu wax cabayo isagoo sooman
إلا برارجيا مواجب بام سوا سنة وسنة waxay soo galaysaa wa tacaawanu cala albirri wattaqwa samafalkii alla ka cabsiga isu qaashada qofkii hurday inaad salaada u toosiso kii cunada cunayay ama cabaya bisha ramadaan ee is-ilowsanaa inaad tidhaa ka daa waxay ka mid tahay wanaagga la isfarayay ka mid kan isagu odhanaya hay baraarujinina wuu qaldan yahay oo waxa muuqata inuu hamuuntii wali qabo oo aanu shaydaanka ka hadhin mar hadduu leeyahay kol haddii la ii fasaxay baan ku wado qalad buu fahmay waxa weeye intaad cudurdaarka leedahay waa inta aad is-ilowsan tahay ama aanad dareensan inaad sooman tahay marka in la baraarujiyo waa sunni ruuxa dumarhii marka ay xajka ku jirto ama soomka kiniinkan kala fogeynaya dhiigga caadada ma isticmaali kartaa waxay ku isticmaali kartaa laba sharti inuu dhakhtarku sheego inaanu dhib ku keenayn iyo inuu ninkeedu ogol yahay hadduu ninkeedu yidhaahdo ha isticmaalin way joojin hadduu dhakhtarku yidhaahdo dhibaato badan buu kugu keenayaa ha isticmaalina way joojin oo dee laa darara walaa diraara buu nebigu leeyahay qofku inuu naftiisa dhibo looma ogolaa iyo inuu dadka kala dhibaba marka hadduu dhibimanayo ama saygii diido ma isticmaali karto haddaan labadaa midna jirin way isticmaali kartaa waase laga fiican yahay way isticmaali kartaa waase laga fiican yahay hadday isticmaashana soonkii iyo xajkii waa ansaxayaa waxa loo leeyahay waa laga fiican yahay qofku xaaladiisa caadiga inuu ku socdo weeye ee dabiiciga ah hadiya jeer mawaadkan la isticmaala chemicalka ah maxay soo kordhinayaan hormoonadii bay wax ka bedelayaan iyo qofka ee caamadiisa iyo farasaadku jidhku soo saarayay taas markaa waxay keenaysaa inuu marka dambe khalkhal xagga caadada ah ku dhaco oo iyadii cibaadadeediiba uu wareeriyo marka qofku sidiisii caadiga ahaa inuu ku socdo weeye ayaamihii ka tagayna uu hadhow soo qaleeyo su-aasha kale odhanaysa xaaskaygii baan la ciyaaro biyi tarankaa iga yimid gefna waad ku dhacday ka toobadkeen maalintaana soo qalee way kala duwan yihiin galmada iyo biyahoo kaa yimaada haddii biyuhu qofka ka yimaadaan soomkii wuu ka jabayaa mar hadduu ku xadgudbay oo isagu sababta uu lahaa toobadina waa ku waajib laakiin hal maalinkaasuu soo qalaynayaa ka tegay qofku laakiin markuu galmo buuxdo sameeyo dee iyada waa maalinkaana waa lagu leeyay toobadiina waa ku waajib kafaara gudkiina wuu la imanayaa inuu 2 bilood soomo hadduu kari waana raashinkii 60ka miskiin siiyo 25 sannadood soonkood baa lagu leeyay maxaa yeelaa intaad kari karto soo soon sidaad u kari karto oo soo soon sanad ba intaad kari karto waa bil ba intaad kari karto ilaahay wuxuu fattaqullaha mastada'tu waa deyn ilaahay oo ku saaran marka deynta ilaahay sidaad isaga bixin karto ila dad badan baa soon sunnaa sooma isniinaha khamiisaha ayaamaha fadliga badan aynu garanayno marka sida dadka muslimiintiiba soonka sunnaha ay u soomaan faralka deynta kugu ah aduguna soon su-aashan kale odhanaysa anigoo ixtikaaf ku jira ayaan xaaskaygii u galmooday haddana masaajidkii baan iskaga noqday waa habeen bisha ramadaana waxaynu arkaynaa inuu u jeedo ictikaafkii mutataabic ahaa oo qofku had iyo jeer markuu doonayo inuu ictikaafo ramadaanta laba siyood buu ictikaafaa mid mutaqatica iyo mid mutawaasila ama mutataabica midi waa ictikaafka googo-aan oo markaad masaajidka timaadaba ictikaaf baad niyoon doonta midina waxa weeye inaad 10ka dambe ama 20ka dambe aad isku adkaysa inaanad masaajidka ka bixin ku ka hadlayaa waa ka weey marka isagoo masaajidka ku jiro xaafadii tagay waxbuu ka soo cunayay islaantiina cunadii buu raaciyay marka muxuu ictikaafkii noqonayaa ictikaafkaas uu ka kala go'ay waxyaabaha buriye ictikaafka kala jara ayuu ka mid yahay jimaac iyo galmada xaas ilaahay baana quraanka ku sheegay wuxuu walaa tubaashiruhunna wa antum caakifuuna fil masaajid dumarka waxbaha ka dayna idinkoo ictikaafka ku jira su-aashan kale ah irbadii suuxdinta ma la isticmaali karaa kolkuu qofku sooman yahay ee ilig laga saarayo iligiisa ma laga saari karaa waa laga saari karaa irbadii suuxdintana waa la isticmaali karaa laakiin waxa dareeraha waa inaan liqindee hadduu yahay biyihii dhakhtar kugu nadiifinayay iyo haddii ay tahay dhiiggii waxyaabaha haddaad liqdo soomkii wuu jabayaa sidaa daraaddeed soomkii in lagu yoolbaadho maahe haddaad xamili karaysa habeenkii ka dhigo haddaanad xamilayninna dee maalintaasoo inuu maalintaa iska afuri karo kol haddii dhibaatadaadu ilaa operation kaa gaadhay
su-aashan kale odhanaysa walaalkay wuu nabiiliyaa laakiin waa soomaa ma salaado jawaabtu waxa weeye sax maaha salaadaa ka sii weyn soomka culimada qaarkoodna waxaabay qabaan qofku haddii aanu soomin inuu gaaloobayo daliilo badan bay usoo qaadanayaan hadduu gaaloobayna dee soomkiisii iyo cibaadooyinkii kale toona kama ansaxayaan qayb culimada ka mid abaaba sidaa ku tegayda sidaa daraaddeed waxaad adiga kaala gudban biilka uu ku siinaya ha ugu habranine in aad dacwad u fidiso ila ilaahay wuxuu uhi wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga salaada far aduguna ku adkow quu anfusakum waahliikum naara naftiina iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya marka inaad u gurmato oo aada muslaxdo oo aada barido oo cajaladaha iyo dhegaysiiso culimada wacdigooda oo aad tidhaahdo yaad noqonin qof hoosta gun la dhaaminayo walaal sidaa aada u soontay waad ku mahadsantahay salaadana raaci oo qofka in hanuun hadyi la siiyo ayaa ka fiican in hadiyad la siiyo hadiyaddu ku siinaya hanuunkaad siinaysa ka qaadis markaa sidaasaad yeeli laakiin adiga dembi kaama saareen oo xilka kaa saareen waa wacdigaa iyo waanadaas macnaheedu maaha taariku salaadkaasi hadduu ku biilinayo inaanad biilkiisa cunayn waad iska cuni doontaa masaariiftaa uu ku siiyo waa qaraaba ee waad xidhiidhin laakiin wacdigaa iyo waanadaas ayaad la ogaan doontaa qaraabo xidhiidhintana waxyaabaha ugu fiican waxaa ka mida dadka diin iyo dacwad iyo hanuun in lagula dadaalo qaraabo xidhiidhinta koobaad ee ugu sii wanaagsani waa taa wallahu aclam waxaynu kusoo khatimi doonaa ducada dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf cibaadooyinkaynu wadnee kala duduwan allah inaga aqbalo soomka salaada qiyaamka qur'aanka ducada dikriga cilmiga intaba allah inaga aqbalo qalbigeenna qur-aanka allaha ku qooyo qalbigeenna qur-aanka allaha ha u furo wii qur-aanka la nool ee ku nool ee qiyaamaha u shafaaco qaaday adduunyada ku camal fale tadbiiqiya allah inaga dhigo hallo waxaynu haynaa allah inoo barakeey waxaynu ka baqaynana allah inaga badbaadi nabadgelyada iyo nicmada iyo baraaraha iyo barwaaqada aynu haysanana allah inoo siyaadiyo inteena duruufaysanna duruufta allah ka dulqaado inta guur u baahan wiilal iyo gabdhaba ku xalaala allah ku arsaaqo guur xalaala allah ku arsaaqo guur xalaala allah u fududeeyo inta cudur ka cabanaysa caafimaad degdega allah siiyo caafimaad degdega allah siiyo inta caruur la'aan ka cabanaysa ilaahay caruur wanaagsan oo barakale allah ku arsaaqo muslimka meelo badan baa lagu dhiban yahay dadka ilaahay dhibka ka dulqaado dadka walaalahan Falastiin ay kamid dhibka Allah ka dulqaado cadawgooda Allah jibiyo nasrigiisa ilaahay ha siiyo nasriga Allah ha siiyo dhammaanteen muraadiyaynu wada leenahay muraadkeena aan macsiyahayn Allah inagu arsaaqo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada Allah inagu la rafiiqi jannada kuwi kula rafiiqa Allah inaga dhigo kuwi waaftaxa jannada ku dabagala Allah inaga dhigo kuwa Allah inaga dhigo naarta Allah inaga nabadgeli cadaabkiisa Allah inaga badbaadi jannadiisana Allah inagu casu cisi iyo sharafna Allah ina siiyo wa aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhana rabbika